This either gonna be sexy or I'm ugly as hell, one of the two. That's so. This either going to be sexy or I'm ugly as hell. It's one of the two. Wuxuu leeyahay tan labay noqon doontaa inaa ahay sexy oo laga wado qof soo jiidasho leh ama inaa noqdo qof fil daran. Labadaas mid ayay noqonaysaa uu leeyahay. Hey guys, kasoo dhawaada channelka English with Mima. Sida caadada ahayd maanta waxaa idin wadaa video kale aan isla wada sharxi doono. Fadlan intaan video hore u gelin haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir channelka subscribe dheh video like ray. Let's go. Video maanta waxaa ku wada sheekaysan doona laba qof waaweyn oo kala ah Ellen iyo Steve. Labadaba show ayay qabtaan. Showgii Steven waa aniga idiin soo sharxay. Anyways, let's get into it. Markan Steve ayaa waxaa lagu casuumay showgii Ellen. You're looking good. Yeah. You're looking good. Yeah. Ellen waxay ku bilowday compliment ama amaan. Steve ayaa waxay ku leedahay you're looking good. Yani waad qurux badan tahay. Jumlada noocan oo kale er looma fasiro. Waxaa laga qaataa macnaha guud. Asina uu ku faraxsan wuxuu leeyahay yeah. Look like money. Uh-huh. Yeah, look like money. Waxaa u muuqdaa sida lacagta oo kale. Yani taajira u ekahay. Look at you with you changed your whole look. Was it on purpose? Did you say, you know what, I'm going to go for a whole new thing now? Ellen waxay leedahay look at you, you changed your whole look. Look at you, yani adigana isfiiri. You changed your whole look. Waxaad bedeshay muuqaalkaaga dhan ayaad bedeshay. Was it on purpose? Kas may ka ahayd. On purpose, kas ama wax aad u qasaday yani. Did you say, you know what, I'm going to go for a whole new thing now? Ma waxaad dhahday markaana wax cusub aan bilaabo. Kinda like that. Oh, kinda like that. Sidaas camal waaye. Kinda like that. Sidaas camal waaye. It happened. I was on vacation, and I actually left my Just For Men at home because I had been dyeing my mustache, you know, black, and I left it at home, and so I was on vacation, so I didn't dye it, and then the rest of it started growing in, and next thing I knew, I went down. I was on vacation. Waxaan ku jiray fasax. And I actually left my Just For a Man at home. Waxaana dhab ahaantii guriga uga soo tagay my Just For a Man. Just For a Man markaan waxaa waay brand malfasiraya magac waaye shirkad oo waxay sameeyaan waxyaabaha oo tinta iyo garka lagu kala reeyay sameeyaan. Baashaas ay waxa ugu soo tago leeyahay guriga because I have been dyeing my mustache black. Maxaa yeelay shaarbaha mar walba waxaa ku kala reen jiro leeyahay kalarka madowga ah. Dye waa kala reen. Mustache na waxaa waaye shaarbaha. And I left it at home. Waxaan uga soo tagay guriga. And so I was on vacation. Yani waxaana ku jiray fasax. So I didn't dye it. Ma kala reenin, ma midabeynin. And the rest of it started growing in. Yani waxa uuna bilaabay inuu soo baxo wixii kale timihii cadcada waxay bilaabay inay soo baxaan. And next thing I knew, I went down. Kuwaana fillers waaye sidoo looma fasiro. Laakiin macnaha ugu dhow Somali ku imaan doona wuxuu noqonaa kadibna waxaan arkay. And next thing I knew, kadibna waxaan arkay. I went down. Waxaa dhahay Allah. This either gonna be sexy or I'm ugly as hell, one of the two. That's so. This either going to be sexy or I'm ugly as hell. It's one of the two. Wuxuu leeyahay tan labay noqon doontaa inaa ahay sexy oo laga wado qof soo jiidasho leh ama inaa noqdo qof fil daran. Labadaas mid ayay noqonaysaa uu leeyahay. Ugly as hell waxaa waaye fil daro zaa'id ah. Hell naar waaye. Ugly as hell zaa'id u fil daran. So I went on sidaasa ku sii watay. Went waxay ka imaada go on waxaa waaye in wax la sii wado. Continue camal oo dhigmataa. I went on sidaasa ku sii watay. I went on. My wife told me to keep it though. Yeah, it's good. Yeah. I love it. My wife told me to keep it. Xaaskayga waxay ii sheegtay inaan iska haysto. Yani inaan shaarbaha iska haysto aan midab iyo waxaas marinin. Yeah, it's good. Way fiican tahay. I love it. Waan jeclahay. Do you really? Oh, yeah. Does anyone not like it? It looks great. Do you really? Dhab ahaantii dhab may ka tahay. Does anyone not like it? Qof aan jeclayn miyaa jiro? It looks great. Waxay u muuqataa inay fiican tahay. Yeah, I mean, you know, it's some haters. Haters always, you know, Instagram, they just stay on there. I don't know what they do. They don't like nothing. Yeah, I mean, there are some haters. Instagram, they just stay on that. Haters waxaa waaye dadka wax necab. Haters dadka wax necab. Wuxuu dhahay waxaa jiro dad qaar oo haters ah oo necab yani oo Instagram iska joogaan.
And I don't know what they do. Mana aqaan waxay sameeyaan. They just don't like nothing. Waxba kama helaan. Wax walba la soo dhigo yani waxay ka dhiibtaan falcelin oo negative ah. Yeah. One dude said, "You look old." I said, "Wait a minute. I've been living more than a half a century, plus a decade, plus 2 more damn years." One dude said, "You look old." I said, "Wait a minute." Mida wuxuu igu dhahay waxaad u eg tahay duq. Kadib waxaan ku dhahay, "Wait a minute." Yani hal daqiiqo sug. I've been living more than a half century. Yani waxaan noolaa wax ka badan nus qarni. Century qarni waay. Half century nus qarni. Plus a decade. Oo lagu sii daray decade. Decade waxaa waay 10 sano. Plus 2 more damn years. Oo lagu sii daray 2 sano. haddii aad xisaabta ku fiican tahay kusoo qor qaybta commentiga meeqa sano jira Steve. Half a century waxaa waaye qarniga 100 ah haafkiisa waxaa ku darsataa 10 waxaa ku darsataa 2 tirada noogu soo qor qaybta commentiga.